kulanti wacan daawada waa barteena YouTube-ka ee halbeega wararka aan xilligan idiin hayno waxa kamid ah ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa beesha murusada oo la wareegay deegaano in muddo ay ka ariminayeen dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab dagaalka halka ka dhacay khasaaraha la soo warinayo iyo wacdarihii halka uu ka dhigay taliyihii hore ciidanka danab ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada wararka ee sidoo kale aan idiin soo gudbin doono waxa kamid ah qorshaha dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo wax badan laga bedelayo istiraatiijiyada dagaalka ayaa isbedel lagu sameeyay hadaba muxuu yahay isbedelka qorshaha dagaal ee Al-Shabaab lagu wajahayo xilligan qodobada wararka ee sidoo kale aan idiin soo gudbin doono waxa kamid ah qorshaha dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo wax badan laga bedelayo istiraatiijiyada dagaalka ayaa isbedel lagu sameeyay hadaba muxuu yahay isbedelka qorshaha dagaal ee Al-Shabaab lagu wajahayo xilligan taliska ciidanka commandoska ee danab ayaa waxa ay sheegeen in ay Al-Shabaab haystaan hal fursad oo kaliya hadaba maxay tahay fursadaasi warbixin gaar ah ayaan ku eegi doonaa xoogan ayaa waxa ay ka socdaan qaybo kamid ah gobolka Galgaduud iyadoo ciidamada dawladda iyo kuwa beesha murusada ay guulo hordhac ah ka gaareen dagaalka soconaya dhawaan ayaa ciidamada huwanta ah waxa ay la wareegeen deegaano dhowr ah kuwaas oo kaabiga ku haya magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud halkaas oo kamid ah fariisimaha ugu waaweyn oo ay Al-Shabaab ku leeyihiin gobolada dhexe ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa waxa ay ka ruqansadeen dhowr jiho iyaga oo dagaal adag ku qaaday fariisimo kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaano dhowr ah oo ay kamid yihiin Ceel Gorof iyo Wabxo afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya General Cabdullaahi Cali Caanood oo shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu ka warbixiyay howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay qaybo kamid ah gobolka Galgaduud General Caanood ayaa sheegay in ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay guulo waaweyn ay ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanka Wabxo iyo tuulooyin dhowr ah oo hoos taga afhayeenka ayaa waxa uu xaqiijiyay in ciidamada huwanta ah ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta magaalada Wabxo oo ah magaalo ay in ka badan 15 sano maamulayeen xoogagga kooxda Al-Shabaab ciidanku waxa ay la wareegeen deegaanka Wabxo oo ah magaalo weyn oo ballaaran isla markaana istiraatiiji ah isla markaana hogaamin karta in ciidanku ay mar kale gacanta ku dhigaan magaalada qadiimiga ah ee Ceelbuur oo iminka ah fariisinka ugu weyn oo ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin qaybo kamid ah gobolka Galgaduud sidoo kale afhayeen Caanood ayaa waxa uu intaa ku daray in ciidamadu ay qabsadeen tuulooyin dhowr ah oo hoos taga deegaanka Wabxo sida tuulada Warxoolo Waragibile iyo sidoo kale Ceel Gorof dhinaca kale afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu ka gaabsaday inuu shaaciyo khasaaraha ka dhashay dagaaladaasi balse waxa uu tilmaamay in mar dambe ay soo shaacin doonaan khasaaraha ciidanku howlgalka uu shalay sameeyay wixii khasaare ah dib ayaan ka soo sheegi doonaa ayuu markale hadalkiisa sii raaciyay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya xaaladda deegaanada dhawaan ay la wareegeen ciidamada huwanta ah ayaa aad u kacsan waxaana ciidamadu halka ay ka sameynayaan howlgallo baaritaan ah iyaga oo ku raad jooga xubno kamid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab oo deegaanka laga qabsaday waxaana ay sameynayaan howlgallo miina baaris ah oo deegaanka ah dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay wajahayaan weeraro ka dhan ah kadib markii ay bilowdeen howlgallo kooxdan looga soo horjeedo kuwaasi oo ka curtay qaybo kamid ah gobolka Hiiraan isla markaana uu majaraha u hayay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan wixii ka dambeeyay howlgallada gobolka Hiiraan waxaa bilowday abaabul dhanka beelaha ah waxaana dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadeeda kala duwan sida militariga commandoska Gorgor iyo Danab ay ka taageerayaan ciidamada beelaha howlgallada ay ku wajahayaan deegaanada Al-Shabaab ee maamulaan sidoo kale howlgallada waxaa qayb ka ah diyaaradaha dagaalka ee dawladaha Mareykanka iyo Turkiga kuwaasi oo baacsanaya dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana dawladda ka taageeraya duqeymaha dhanka hawada ah wixii warar ah ee ka soo kordha howlgallada ka socda qaybo kamid ah gobolka Galgaduud wararkeena xiga ayaad ku daawan doontaan balse markan qorshaha dagaalka ah ee ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa markan la soo warinaya in wax badan laga bedelayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo hogaamiye u ah howlgallada ka socda gobolka Hiiraan qaybo kamid ah isla markaana ahaa mas'uulkii ugu horeeyay ee bilaabay howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab oo markaa dhanka beelaha ah ayaa waxa uu shaaciyay in wax badan ay ka bedeli doonaan qorshaha dagaal ee lagu wajahayo Al-Shabaab gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo ah hogaamiyaha dagaalka lagu xoreynayo gobolka Hiiraan ayaa waxa uu soo gaaray magaalada Muqdisho isagoo faahfaahin ka bixiyay qorshaha socda isagoo ka hadlay ujeedka safarkiisa Muqdisho gudoomiye Jeyte ayaa waxa uu sheegay in uu doonayo in wax badan laga bedelo qorshaha dagaalka lagu soo afjarayo kooxda Al-Shabaab maadaama iyaga oo bedeli karaan qorshahooda dagaalka waxaana uu qorshihiisa la wadaagayaa madaxda qaranka sida hadalka uu dhigay shantii bilood oo ayna ka soo gudubnay gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya waxaa ka socday dagaal u dhaxeeya qaar kamid ah qabaa'ilka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab kaasi oo ay reer Hiiraan ka keeneen guulo waaweyn
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa sheegay in magaalada Muqdisho uu yimid inuu la kulmo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya si qorshihiisa dagaalka uu la wadaago iyo baahiyaha ka jira deegaanka kaasi oo la doonayo in dowladda federaalka Soomaaliya ay gacan ka geysato. safarkaygu waxa uu ku saabsan yahay maadaama waqti dheer aan ku jirnay dagaal, waxaan dowladda la wadaagaynaa macnaha uu sameeyay dagaalkii aan galnay. waxaa jira waxyaabo aan uga baahanahay dowladda dhexe ee Soomaaliya ayuu yiri gudoomiye Jeyte. gudoomiyaha oo wareysigan siiyay idaacadda VOA qaybteeda Soomaalida la hadasha ayaa waxa uu sheegay in dhul aad u baaxad weyn ay kala wareegeen ururka Al-Shabaab, isla markaana dhulka haatan gacantooda ku haray uu yahay deegaano dhowr ah oo dhaca galbeedka gobolka Hiiraan kuwaasi oo xiga dhanka webiga Shabeelle. markii la eego xeerka dagaalka inta ay la eg tahay khatarta aad wajahayso ayay guusha aad gaari karto la eg tahay ayuu yiri. dadka Soomaaliyeed aad ayay u fiican yihiin, dhalinyarada Soomaaliyeed aad ayay u dagaalameen. dagaalka Hiiraan waxa uu ku socdaa sidii aan u qorsheynay ayuu hadalkiisa ku soo daray intaa. gudoomiye Jeyte ayaa beelaha Soomaaliyeed ugu baaqay inay shabaab iska dulqaadaan, isagoo u ballan qaaday garab istaag iyo in ay kooxda ka xoreyn doonaan meel walba oo dalka ka mid ah, isla markaana beelaha Soomaaliyeed ay ku gacan siinayaan dagaalka ay kooxdan kula jiraan. shabaab oo looga guuleysto Hiiraan waa in Soomaalidu ay ka wada guuleysatay. mar haddii aan Hiiraan ka xoreyno waxaan gacan ka geysan doonaa sidii looga xoreyn lahaa gobolada kale ee dalka. inkasta oo aan Hiiraan bis mas'uul ka ahay, haddana waxaan u diyaarsanahay xoreyn qaran oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed aan kooxdan ka dulqaado ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay gudoomiye Cali Jeyte. Cali Jeyte Cismaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa waxa uu noqday geesiga goobta dagaalka kadib markii uu horbooday isla markaana uu hogaamiyay howlgallo dhowr ah oo guulo ay ka keeneen ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda Soomaaliya. taliska ciidanka commandoska danab ee xoogga dalka Soomaaliyana waxa ay sheegeen fursadda kaliya ee u banaan markan dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab. qaybo badan oo kamid ah gobolada dalka waxaa ka soconaya howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab, waxaana markan war ka soo saaray arrinkaasi taliska commandoska danab. taliska ciidanka commandoska danab ee xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in waqti dhow ay soo afjarayaan howlgallada ka socda qaybo kamid ah gobolada dalka kuwaas oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. taliye ku-xigeenka ciidanka commandoska danab Gaashaanle Xasan Maxamed Cismaan Xasan Tuure ayaa waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay ku baraarugeen in shabaabku halis ku yihiin noloshooda, taasina ay ciidanka ka caawisay in ay dardar geliyaan howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka kooxdan. waxaa nasiib wanaag ah in ummadda Soomaaliyeed ay ku baraarugeen ayna garteen in nimankan ay yihiin argagixiso dhibaato ku haysa ayna iska dulqaadaan ayuu yiri taliye ku-xigeenka danab. taliye ku-xigeenka oo kamid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee horkacaya gulufka ka socda qaybo kamid ah gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ayaa waxa uu ku waramayaa in howlgalladan ay kuwii hore kaga duwan yihiin, iyadoo shacabku garowsadeen inay iska dulqaadaan Al-Shabaab isla markaana ay la howlgalayaan ciidamada. howlgalladan waxa ay kaga duwan yihiin howlgalladii hore. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mar walba howlgalku waa uu sameyn jiray, dad badan oo deegaanka ah oo garab siiya waa ay jireen, laakiin hadda kii hore waxa uu uga duwan yahay. bulshadii oo dhan ayaa waxa ay u kacday inay iska xoreeyaan nimankan, haddii saqiir iyo kabiir yahay iyo haddii uu qof caajisa yahay intaba inaan la dhaafin. markuu ogaaday ayaa ummadii waxa ay go'aansadeen inay iska xoreeyaan cadowga ummadda Soomaaliyeed, wayna u istaageen. anagana meeshaas waxaan ka helnay didiilo iyo garab istaag fiican ayuu yiri taliye ku-xigeenka ciidanka danab. isaga oo warbaahinta qaranka la hadlayay ayuu yiri ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markii horeba shaqada waa uu waday, haddana isaga oo intii ka sii niyad iyo awood fiican ayuu wadaa dagaalkii argagixisada lagula jiray, isaga oo kaashanaya dadka deegaanka. howlgalladan waxay uga duwan yihiin kuwii hore, waa bulshadii iyo ciidankii oo isgarab socda. Gaashaanle Xasan Maxamed Cismaan ayaa waxa uu qabaa in aanay shabaabku lahayn awood ay xilligan ugu babacdhigi karaan ciidanka iyo shacabka wada socda, isaga oona qiimeyntooda cududda Al-Shabaab ku sheegay 30%. awood ay hadda ku hor istaagaan ummadda Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka ma laha. awoodooda waxa haray waa 30% ayaan dhihi karnaa markii aan qiimeyn sameyn ayuu yiri Gaashaanle Xasan Tuure. kaasi oo hadalkiisa intaa ku sii daray sababtoo ah waxaad ka dareemi kartaa dagaalkii meeshan lagula galay waxa ay hor istaag ku sameyn waayeen ciidamada, iyagoo awoodii ugu badneed keenay Ceel Hareeri ayay hor istaagi waayeen ciidamadii ugu yimid meeshaas ee ku soo weeraray, iyagoo weliba dhuumaaleysi sameynayay oo godad qodanayay ayaa godadkii looga dabagalay. marka inaysan awood lahayn meeshaas ayay ka muuqataa. Gaashaanle Xasan Tuure ayaa waxa uu tibaaxay in waqtiga dhow dalka uu xor ka noqon doono ururka Al-Shabaab. wadada kaliya ee dagaalamayaasha ururkaas u furanna waxa uu sheegay inay tahay inay isu soo dhiibaan ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka. rajada ii muuqato waxa weeye muddooyinka soo dhow in wadankan uu xor yahay oo Al-Shabaab aan laga sheegi doonin. inta hadda dagaalkan ku dhimatayna
waa ay dhinteen intii kalena waa la daba socdaa. fursad waxa ay haystaan in ay isa soo dhiibaan sidii dowladda Soomaaliyeed ay horeba u sheegtay. ninkii isa soo dhiibo waan soo dhaweynaynaa, ninkii aan isa soo dhiibinna baqtigiisa ayaan keeni doonaa haddii Ilaahayna gaarsiiyo, ayuu yiri Gaashaanle Xasan Tuure. ciidanka commandoska ee Danab ayaa kaalin weyn ka geysanaya dagaalada ka socda qaybo ka mid ah gobolada dalka, iyagoo markaa duqeymaha dhanka cirka iyo howlgallada gaarka ah ka taageeraya beelaha Soomaaliyeed ee howlgallada wada. wararkii ugu dambeeyay oo aad xilligan kala socoteen baraheena internetka xilligan waa naga inta. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir adigoo muuqaalka like saaray una share gareynaya saaxiibadaasi uu dad badan u gaaro. mahadsanid.